hal shay xasuusnow ma jiro qof aan iibsan karin ama aan dumin karin haddii aan u baahdo. waa erayada uu ku hadli jiray nin taajir ah oo u dhashay dalka Mareykanka kaasi oo xilli horeeto noolaa. ninkan oo magaciisu uu yahay Howard Hughes. dunida uma aysan aqoonin oo kaliya inuu ahaa ganacsade najaxay cilmi baare iyo jira waxa sidoo kale loo yaqiinay in uu yahay nin la yaab leh oo muddo 26 sano ku siman kaligii noolaa oo waliba muddadaasi in la eg aanan ka soo bixin gurigiisa. ninkan odayga ah ay maalqabeenka ah oo muddada dheer kaligii noolaa markii dambe waxa uu u muuqday qof maanka looga jiro maadaama uu joojiyay jarista timaha ku yaala in uu iska jaro isagoo si joogto ah u sameynayay ficilo badan oo dadka ka yaabiya. haddaba maxay tahay sheekada ninkan maanta muuqaalka aynu ku eegayno? Howard Hughes waxa uu dhashay sanadii 1905 isagoo dhaqaalaha ugu badan ka sameeyay baadgoobka iyo soo saaridda saliidda. yaraantiisii aabihii waxa uu ku soo dadaalay waxbarashadiisa isaga oo geeyay dugsiyo hooy ah oo kala duwan. waxuna Hughes sanadii 2009 uu sameeyay mashiinta saliidda lagu qodo laguna soo saaro. mashiintaasi uu sameeyay aabihii isaga ayaa loogu magac daray. shirkadaha waaweyn ee saliidda soo saara waxay safaf dhaadheer ay u soo gali jireen maalgashiga saliidda lagu soo saaro warshadda Hughes samaysay. markii dunida ay ku cusbeyday iibinta mashiinadaasina waxa uu ka sameeyay lacag aad u fara badan. Howard dabeecad ahaan waxa uu ahaa mid xishood badan, maqalkana uu aad ugu adag yahay. inta waxbarashadiisii uu ku guda jiray ma jeclayn in uu cid la hadlo. ugu dambeyntii kalinimadii daashatay si uu xal uga helo waxa uu u waacday dhanka iyo shineemooyinka iyo tiyaatarada. da'diisu markay ahayd 14 sano jir aabihii waxa uu ka qayb galiyay tartanka qoositaanka biyaha oo dhex marayay laba jaamacadood oo ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Howard hooyadii waxay geeriyootay xilligaasi 2 sano kadib isaga oo isla aabihii u geeriyooday 2 sano kadib markii hooyadii ay geeriyootay. Howard oo xilligaasi da'diisu ay ahayd 18 sano jir waxa uu dhaxlay hanti aad u badan oo uu ka dhaxlay aabihii oo saliidda ka ganacsan jiray iyo sidoo kale hooyadii. maadaama aabihiina uu ku jiray ganacsiga dhanka saliidda hase yeeshee Howard intii uu aabihii noolaa aad uma aanu dareyn jirin howlaha ganacsiga oo waxa uu iska howlay in uu masraxyada shineemooyinka lagu soo bandhigo uu qayb ka qaato. markii dambeetana habka uu riwaayadaha u jiro waxay soo jiidatay shirkadda aflaamta ee Hollywoodka taasi oo filimaan dhowr ah u dhiibtay ninkan. baabi'inta hantidiisii uu ka dhaxlay aabihii. Howard markii uu ku biiray Hollywoodka waxa uu bilaabay hantidii uu aabihii uu ka dhaxlay in uu ku ciyaaro uu baabi'iyo. waxyaabihii ninkaasi uu xilligaasi ku dhaqmayay waxa buug dhan ka qoray qorayaasha kale ah Peter Henry iyo sidoo kale Bud Prosser. waxayna qoreen in lacagtii dhaxalka ahayd oo waalidiintii ay uga tageen in uu ku tamaslayay uu bilaabay in uu ka gato dhar, kabo, baabuur. hal gaarina weligii ma una iibsan. waxa uu markiiba uu iibsan jiray 6 gaari ugu yaraan. waxa uu iibsan jiray sanduuqyo ay ku jiraan saacado aad u qaali ah. dharkana halkii mar 20 shay ka yar ma una iibsan jirin. saamiyada aabihii shirkadaha kala duwan uu ku lahaa waxa uu ka iibsaday ilaa iyo 3.8 milyan oo dollar ayay yiraahdeen qorayaashii wax ka qoray. waxa uu doonayay in uu howlaha shaleemada uu ku shubo dhammaan lacagtii saamiyada aabihii ee shirkadaha uu ku iibsaday. filimkiisii ugu horeeyay ee Howard magac iyo dhaqaale ahaanba uu ka sameeyay waxa uu ahaa filimka magaciisu uu yahay Agents Hell. waxa uu ahaa filim ka hadlaya dagaalkii koobaad ee adduunka kaasi oo dadkii ugu horeeyay lagu arkayay diyaarado duulayo iyagoo adeegsanaya diyaarado dagaal. waxaa la sheegay in ciidamada dalal badan oo ka mid ah caalamka ay xilligaasi lahaan jireen diyaarado iyo sidoo kale duuliyo la mid ah kuwa filimka loo adeegsaday. Howard waxa uu inta badan uu qori jiray wax kasta oo bedelay oo dib u qoray sheekooyinka filimaantiisa iyo sidoo kale riwaayadaha. heshiiskii ugu yaabka badnaa ee uu la galay shirkadda Hollywood uu ka mid ahaa waxay ahayd in daruuraha ay arki kareen. filimka Howard uu sameeyay waxa ku baxday lacag dhan 40.4 milyan oo dollar. lacagtaasi oo xilligaasi ahayd mid aad u fara badan. filimka Agents Hell uu Howard sameeyay waxa uu dhigay rikoor cusub oo dhanka box office-ka ah. mar walibana wuxuu jeclaa filim kasta uu sameynayo in uu hal abuur cusub uu ku soo kordhiyo. Howard oo hibad u lahaa hal abuurka
sanadii 1935 waxa uu ka fikiray inuu sameeyo diyaaradda dunida ugu dheeraysa waxaana rabitaankiisii u dhameeyay 3 sano kadib sanadii 1938 marka uu diyaaradda sameynteedii uu ku guuleystayna waxa uu ku dhaqaaqay dunida oo dhan in uu duulimaad ku soo maro waxa uu sameeyay duulimaad 3 maalmood socday oo uu ku duulayay 19 saacadood duulimaadkaasi kadib wuxuu aasaasay ninkan shirkad diyaaradeed maadaama xilligaasi ka ganacsiga diyaaradaha iyo duulimaadyadooduba dunida uu suuq weyn u ka lahaa xilligaasi uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ciidamada badda ee Mareykanka waxa uu nashqadeeyay maraakiibta gujista ah muddo kadibna waxa Howard la soo diristay xaalad caafimaad oo dhinaca maskaxda ah wixii intaas ka dambeeyay noloshiisa waxa uu ku qaatay keligii iyo sidoo kale tawba waliba guri cidla ah sheekooyinka ninkan taajirka ahaa waxa filimaan ahaan u jilay jilaaga caanka ah ee Leonardo DiCaprio Howard gacmihiisa daqiiqad walba waa uu dhaqayay taasoo marmarka qaar gacmihiisa ka keenaysay dhiig aan kala joogsi lahayn sanadii 1946 Howard waxa uu galay shil diyaaradeed shilkaasi oo ahaa kii shanaad ee uu galo balse kan shanaad ma noqon mid uu ka badbaado oo waa uu ku dhaawacmay dhaawac culus ayaa shilkaasi xilligaasi ka soo gaaray in muddo ah ayuuna dhakhtarka yiilay oo dhaawaca laga dabiibayay sanadii 1947 oo lagu soo eedeeyay in uu dagaalada dunida xilligaasi ka socday lacaga badan uu ka sameeyay ayay aqalka sanadka u yeereen si uu eeda loo soo jeediyay uu sharaxaad uga bixiyo marka ayaana Howard ugu dambeysay in uu meel fagaaro ah oo uu ka soo muuqdo muddo 26 sano ah wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu iska jaray dhammaan xiriiradii dadka uu la lahaa laakiin ganacsigiisii ayaa sare intaasi u sii kacay laga soo bilaabo sanadii 1966 ilaa 68 waxa uu iibsaday dhul kaasinosa iyo sidoo kale hoteelo ku yaala gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan Las Vegas sanadii 1966 shirkad uu lahaa waxa ay sameysay dayax gacmeedka Surfer 1 kaasi oo ah dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee Mareykanka ay ka degay dayaxa ninkaasi 26 sano ayuu guri ku jiray habeen iyo dharaarna waxa la sheegay in gudaha gurigaasi uu ku jiray isagoo aanan wax dhar ah xiran cuntada uu aad u jeclaa muddadii uu quudan jiray waxa ay ahayd caanaha iyo sidoo kale chocolaate markii dambe waxa uu wareegay hoteelo dhowr ah isagoo hab dhaqankiisii muddada dheer uu ku soo dhaqmayay aan waxba iska bedelin arinta la yaab kale oo uu sameeyay muddada uu qolka ku jiray waxa ay ahayd in uu sawiro fara badan oo farshaxan ah oo ninkani uu sawiro Howard Hughes waxa uu shil diyaaradeed ugu dambeyn ku geeriyooday sanadii 1976 nolosha ninkaasi oo dhan aan la garanaynin waxa lagu tilmaamo balse loo badinayo in uu dhimarka uu xanuun ka qabay ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka dunida ugu taajirsan ee soo maray balse muddo dheer aan lacagahooda ku raaxaysan